haddii aad doonayso inaad noqoto memo traders memo trading ama aad barato xirfadan memo tradingka waxaa lagaga baahan yahay inaad barato marka ugu horeysa memo tradingka marka halkan waxaan kusoo diyaariyey 5 qodob memo coins tradingka sida lacag looga sameeyaa marka hordhacan waxaad eegi doonaa 5 qodob ee ugu horeeya 5 qodob ayaan isla eegi doonaa 5 qodob waxay noqonayaan qofka ee laga rabo inuu memo trading noqdo waa inuu barto memo tradingka iyo sida uu shaqeeyo waa maxay blockchain inuu barto inuu samaysan karo website lagu trade gareeyo memo coinska iyo inuu aqoon u leeyahay tradingka oo aqoon u leeyahay uu yaqaano trading systemkii mentorship inaad hesho ama full course marka mentorshipka waxaad uga baahan tahay qofku haga oo traders signals kula wadaaga full course-na inaad hesho waxa kaaga filan course-kan hadda aan bilaabay oo aan hordhaciisa hadda wado marka full course-kan waad qaadan doontaa 5 qodob ayaa ugu muhiimsan marka waxaan isla eegi doonaa hadda waa inaad barato memo trading iyo sida uu shaqeeyo memo tradingka casharkan ayaan kugu barayaa step 1 step 2 waa maxay blockchain-ka ayaynu baran doonaa wuxuu yahay blockchain-ka memo coinska lagaga baahan yahay inaad barato waxaan soo qaadan doonaa 4 blockchain oo memo coinska inta badan ka soo baxaan ayaan isla eegi doonaa halka waxaad ku aragtaa memo coins marka dhammaan memo coinski website-kan waxaa la yiraahdaa gecko terminal marka inta badan waxa lagu soo gudbiyaa oo la soo geliyaa memo coinsku waxa inta badan ka soo baxaan Solana BNB iyo Ethereum Monday blockchain-kan Monday ayaa la yiraahdaa cusub yahay xagan chains ayaad arkaysaa waa dhamaan blockchain-nada memo coins ka soo baxaan marka blockchain-nadan ayaad baranaysaa marka waxaad baranaysaa blockchain-nadu halka ay suuqa kaga jiraan halkan waxaad ku arkaysaa Ethereum xagan kale waxaad ku arkaysaa Solana xagan kale waxaad ku arkaysaa BNB chain xagan base ayaad ku arkaysaa dhamaan way badan yihiin waa arkaysaa Zoo ayaa kamida waxa kamida Hyperliquid waxa kamida dhamaan blockchain-nadan adiga marka inaga marka waxaynu qosayn doonaa oo aynu aad xoog saari doonaa blockchain-ka la yiraahdo Solana iyo Ethereum iyo BNB saddexdaas ayaan saari doonaa iyo base marka waxay ku xiran tahay kulba website-kan isticmaalayno markaas soo sheegnay inagu xoog waxaan saari doonaa Ethereum BNB marka waxay ku xiran tahay markasta memo coinska soo baxayaan inta badan waxay ka soo baxaan BNB iyo Solana marka maanta oo muuqaalkan duubayo Solana waxay maraysaa 130 marka memo coinsku inta badan marka la soo daabacayo memo coin waxa inta badan soo baxa marka uu suuq daato oo sidoo kale u jaban yahay waayo memo coin kala soo saaray wuxuu ku dhisan yahay Solana waa inay jabnaato marka ay Solana u jaban tahay waxa soo bixi kara memo coins badan ayaa soo baxaya marka saasoo kale BNB na saasoo kale imika waxay maraysaa 882 sidoo kale Ethereum waxay maraysaa 3,530 oo dollar ayay maraysaa marka memo coin-ka marka blockchain-nada ay ku siin marka blockchain-ka hadaan ku sii dhufano oo imikaas kale inta badan inagu xoog waxaan saari doonaa Solana oo blockchain-ka ugu badan ee coinsku ka soo baxaan marka ay ka soo baxaan memo coinsku banfan ay inta badan ka soo baxaan banfan marka Solana ay iyaduna aqbasha oo marka qofku waan ku tusi doonaa qaabka memo coinska loo sameeyo iyo qaabka banfan loo soo geliyo waxaad arkaysaa blockchain-kani Solana waxay maraysaa 230 marka qodobkaas blockchain-ka halka aan kaga gudbo inaad samaysan karto website laga trade gareeyo memo coinska xaga dambe ayaan ku baran doonaa qodobkaas step 3 step 4 inaad aqoon u leedahay tradingka marka aqoon badan ayaad u yeelan doontaa marka casharkan aad daawato mentorship haddii aad u baahan tahay waad ku soo beeri kartaa inaad hesho full course-kana waan ku siin karaa mentorship-kana waad ku soo beeri doontaa haddii aad u xiiseynayso inaad signalska iyo wax badan oo memo coin-ka ama coin-ka soo baxay marka aad trade garaynayso laga hubiyo marka mentorship-kana insha Allah xaga dambe ayaan ka shaacin doonaa marka haddii aan sii wado course-keenan cusub ee aan dhawaan shaaciyay inaan idin wadi doono memo coins-kana aan diyaarin doono marka memo coins trading-ka waa maxay memo aan isla faano memo coins trading waa iibin marka waxa u dhaca sidii crypto-da caadiga coin ayaa soo baxay waad iibsanaysaa kadibna coin-kaas marka uu gaaro meel fiican market cap-kiisu ayaad iska iibinaysaa inta badan market cap-ka ayaad ka eegaysaa coin-ka soo baxay coin-ku marka ay soo baxaan 4,000 oo market cap ayay ku soo baxaan marka casharka xagga dambe ayaan ku sharxi doonaa memo coin waxa kaloo la yiraahdaa waa memes ama chokes waa coin ku soo baxay ciyaar iyo qosol waana coin trending ah
oo trending internetka ka ah wax internetka trending ka ah kusoo baxay imika kale tusaale ahaan qof caan ah ayaa la dilayaa marka qofka la dilo magaciisa ayaa meme coin laga soo dhigayaa sidaas ayaan kusoo baxaya haddii aan tusaale ka siiyo waxaan tegi doonaa Axiomkeena ayaan tegi doonaa waxaan ku tusi doonaa meme coinkii soo baxay markii Mareykanka la yiri waxa laga tarxilayaa dadkii soo galeytiga meme coin la sameeyay ayaan ku tusi doonaa marka halkan ayaan ku qori doonaa meme coinka aan ku tusay halkan ayaan ku baari doonaa meme coinka soo baxay marka magaciisa halkan ayaan ku qori doonaa meme coinka waxay u bixiyeen Soomaali marka Soomaali ayaa la raafiyay waxay soo baxay arkaysan meme coin Soomaali 2 days score ayuu soo baxay arkaysan marka ku dhufto waxaan eegaynaa xagii uu gaaray iyo lacagtii laga sameeyay marka meme coinka waxa la dhahdaa waxyaalaha markasta suuqa trendiga ka inta badan waxa badan kala helaa Twitterka ama X-ka halkaas ayaad kala socon kartaa su'aashaasna waan ka jawaabay arkaysan oo meme coinkan wuxuu ka soo baxay markii la yiri Mareykanka waxa laga tarxilayaa ama laga dareerinayaa dadkii soo galeytiga meme coinkan saas ayaa loo sameeyay qof ayaa dhisay developerkan ayaa sameeyay holderskiisa wuxuu marayay 340 qaybtan mar kale ayaa idin sharxi doonaa laakiin tusaalaha ayaa halkan ila soo galay inaad la fahanto qodobkaas waa ka jawaabay wax trending ah ayuu suuqa ku soo galaa waa labadan qodob ayaad ila fahmi doontaa imkana waa laba qaab oo dadka meme coinsku waa laba qaab dadka isticmaala meme tradingku waa dad developer gareeya ama meme coin cusub soo saara iyo dad meme coinkaas developerku uu soo saaray sidii kii Soomaali hadda ku tusay dad trade gareeya oo buy iraahdo kadibna lacag fiican ka sameeya iyo dad marka labadaas bay noqonayaan waa laba qodob oo muhiim ah inaad aad xoog u saartana loo baahan yahay ama waxaad noqonaysaa qof developer ah oo coin soo saara ama waxaad noqonaysaa qof trading ah marka labadaba waan ku bari doonaa qaybta tradingka ayaan hadda ku horeyn doonaa qaybta developerkana waan ku dambeyn doonaa waxaan ku tusi doonaa developerku iyo qofka tradingkii waxay ku kala duwan yihiin muuqaalka xagga dambe ayaan wax badan ku faahfaahin doonaa marka muuqaalkan waxaad ku baran doontaa taas loo noqdo meme trader waxaad ugu horeyn baran doontaa dhammaan website-ka laga helo meme coinska cusub iyo qaabka ay u shaqeeyaan sida Axiom iyo Terminal iyo qaar kale oo badan marka muuqaalkan ayaan kugu bari doonaa iyo muuqaalada soo socda website-adan iyo qaabka ay u shaqeeyaan imikana waxaan geli doonaa 6 qodob oo kale oo nalaga rabo in xoog saarno haddii aan nahay meme trading qof meme litin qodob ay xoog saari doontaa haddii aad doonayso inaad noqoto wana tibiska meme coin meme tradingka loo kala qaybiyo qofku waa inuu taqaano oo marka hore barato website-ada lagu trade gareynayo iyo website-ada qaar ayaa jira iyo qaar website ah oo aad ka baaranayso oo xog fiican aad ka helayso waxa kale oo iyaguna jira filters la isticmaalo oo AI-gaas website-ada AI-ga ah lagu isticmaalo waxa isna ku xiga inaad taqaano tokenku halku ka soo baxay tokenka marka uu ka soo baxo blockchain ayuu ka soo baxaya waa inaad kaloo aadna xoog u saarto xirfadda trading systemka muuqaal gaar ayaan ka diyaariyay waa soo dalban kartaa haddii aad u baahan tahay inaad trading system noqoto trading systemku wuxuu ka caawinayaa inaad suuqa trade gareyn karto haddii aad markaa forex trading tahay oo forex aad isticmaasho oo aad trading forex tahay trade systemka ayaa ka caawinaya haddii aad u baahan tahay markaa inaad bookcode option oo kale aad trade ka qaadato waxaa ka caawinaya trade systemka marka haddii aad doonayso oo kale crypto trading oo kale haddii aad tahay inaad crypto trade ka samayso isagana waxaa ka caawinaya oo isna ka caawinaya trade systemka waxa kaloo intaas oo dhammaan trade systemka ayay hoos imanayaan marka qodobadaas dib ayaan ka sharxi doonaa iyo qaabka aad u helayso marka casharkan ku sii socdo ka 6 qodob marka aad fahanto waa kuwan 6 qodob oo aan sharxi doono oo casharkan kugu bari doono website-ka waxaan ka soo qaadanay Axiom ama Terminal filterska waan ku bari doonaa oo xagga dambe ayaan ka bari doonaa Axiom marka aan barano iyo sida ay u shaqeyso filterskeedana waan raacin doonaa token coinski weey marka blockchain-kiina waxa aan ka soo qaadan doonaa BNB Solana Ethereum iyo qaar kale oo iyagana aan xagga dambe ka sharxi doono systemka waa trade systemka aan sharaxay marka dhammaan iyagana course gaar weyn trade systemku course-kaas ayaad qaadanaysaa kadibna dhammaan iyaga marka trade systemka si fiican u fahanto waxaana uu ka caawinayaa inaad noqoto marka aad fahmi karto analysis-kii suuqa
memo marka aad coin soo baxo aad trade garaynayso marka qaybta aan kusoo gudbo waxaan hadda u gudbi doonaa qaybtii casharkii koowaad step 1 step 2 step 3 saasaan u wadi doonaa marka hadda waxaan geli doonaa step 1 waxaan ka bilaabi doonaa Axiom oo ah tooliska aan isticmaali doono waxaan ku bari doonaa blockchain-nada Axiom la socda waxaan ku bari doonaa dashboard-ka Axiom waxaan ku bari doonaa sida lacag Axiom loogu soo shubto iyo sida lacag loogala baxo waxa kale oo aan ku bari doonaa fee trading-ka sida la iskaga soxo waxa jira Axiom marka trade aad gelayso aad coin tusaale oo kale coin-kan oo kale aad iibsanayso waxa jira meel la iska soxo marka hor dhici maayo laakiin intaas ayaan kugu bari doonaa casharka koowaad kusoo dhawaad casharka koowaad ugu horreyn waxaan samaysan doonaa Axiom tool marka Axiom tool hadda doonayso inaad samaysato Chrome-ka ka gelin oo ku qoran Axiom laakiin waxaad raaci doontaa linkigan oo ah linki aad aniguba iska diiwaangeliyay midda kale linkiga marka aad raacdo waxaad heli doontaa kooraska qaybihiisa kale shuruudda lagu helayo halkan ayaan madhow kugu qori doonaa kooraska qaybtiisa kale ma soo dhigi doono YouTube marka halkan shuruudo ayaan ku qori doonaa marka aan dhameeyo laakiin aan ku socono waxaan hadda samaysan doonaa Axiom waxaan ku bari doonaa Axiom blockchain-nada ayaan ku jira ee aad geli doonto waxa kale oo aan ku bari doonaa dashboard-ka waxa kale oo aan ku bari doonaa sida lacag loogu shubto Axiom iyo sida withdrawal loo sameeyo waxa kale oo aan ku bari doonaa free trading-ka sida la iskaga soxo iyo qaybo kale oo muhiim ah marka haddaba linkiga waxaad tegeysaa muuqaalkan hadda aad daawanayso commentigiisa koowaad waxaad ku dhufanaysaa commentigan ay ku qoran tahay linkigan iska diiwaangeli marka linkigan halkan ayaad ku dhufanaysaa kadib marka linkiga aad ku dhufato halkan ayuu ku keenayaa kadib star ayaad leedahay marka starna waa odhan kartaa sign upna waad odhan kartaa linkiga aad soo raacday waa inay la socoto jeel xirfad 433 ama jeel xirfad 143 ayaad gelin kartaa adigoo qorayo linkiga soo raacin marka halkan waxaad gashan doonaa Gmail ayaad gashan doontaa marka hadda Gmail-ka ayaan gelin doonaa soo arkaysan waxaan soo geliyey Gmail-ka ayaan soo geliyey linkiga aan soo raacay magacii la socdayna ayuu jira markaas sign up ayaan leeyahay si aan u samaysto wuxuu leeyahay Gmail-ka aad ku samaysay ayaan koodhka ugu dirnay koodhka ayaa soo gelin doonaa halkan koodhka ayada adigna saas oo kale u geli koodhka wuxuu ku soo dhacay aniga mobilka marka koodhka ayaan gelinayaa soo arkaysan koodhkii ayaan geliyey wuxuu leeyahay password oo samayso password ayaad u samaysanaysaa password isku mid ah marka hore passwordka xagna ayaad gelinaysaa kadibna passwordka oo kale san oo kale ayaad u samaysaa hadda wuxuu ku leeyahay dooro marka choose ma anaa kuu dooro buuri mise adiga ayaa samaysan ma aniga ayaa samaysanaya marka Gmail-ka marka password aad samaysanayso tusaale ahaan haddii lagu dhahdo Muuse san ayaad u qoraysaa xarafka koowaad ayaad weynaysiinaysaa Muuse waxaad qoraysaa 1 saasoo kale ayaad tira u raacinaysaa kadibna at ama saasoo kale ayaad u samaysanaysaa kadib si fiican ayuu markaas kugu samaynayaa marka ani hadda waxaan samaysan doonaa meel cusub oo kayga aan ku geli doono waxaan samaystay Gmail cusub oo aan anigu leeyahay waan qarsaday marka adiguna waa tusaale waan ku tusay saasoo kale ayaad u samaysan kartaa marka continue ayaad leedahay wuxuu leeyahay ma ku save karaysaa maya nefa baan leeyahay ma rabo waayo waan hayaa Gmail-kii marka hadda waxaan soo galnay dashboard-kii Axiom dashboard-keed ayaan soo galnay dhammaan kuwan ayaan ku sharxi doonaa haddii marka intaanan dashboard-ka gelin wuxuu ku siinayaa KYC aad meel dhigan karto KYC-gan wuxuu ka caawinayaa hadhow haddaad istiraahdo Axiom mobilka ka gal inaad ku gasho marka KYC-ga aad furayso halkan ayaad taabanaysaa waxaa dhici karta in KYC-ga laga qariyo oo screen madow ka qabsado laakiin KYC-ga halkan marka aan furo oo arkaysaan KYC-gan xarfahan ayaa meel dhiganaya oo marka halkan ayaad copy leedahay kadib markaad copy tiraahdo KYC-gan adiga ayaa iska leh cid kale ha iska tusin aniga hadda kan akoonkaygi maaha dhabti laakiin akoon adiga aan kugu tusayo marka continue ayaad si leedahay marka KYC-gana KYC-ga meel ayaad dhiganaysaa KYC-ga tusaale ahaan wuxuu u taagan yahay sidii qof la yiri passport-kaaga oo kale ku soo gal maadaama Axiom ay tahay wallet AI ah oo si fiican aad ugu trade garaynayso marka continue ayaan si leeyahay continue markaan sida markale good continue ayaan si leeyahay wixii leeyahay lacag ku soo shubo laakiin lacagta gadaal ayaan u dhigan doonaa waxa ku siin doonaa blockchain-nada ay ku dhisan tahay halkan ayaa laga eegaa
waxaad arkaysaan Solana haddana imika Solana ayaan ku jiraa oo memo coinska ama coinska Solana ka soo baxay ku dul dhisan Solana ayaa halkan aan hadda ii muuqda haddaan BNB ka dhigana waxaa ii muuqan doona memo coinska ka soo baxaya BNB ayaa ii muuqan doona marka inta badan BNB kama soo baxaan memo coins badan markaa saasoo kale ay suuqa uga maqan yihiin waa arkaysaan BNB markaan saa ugu dhufto trending haddii aan trending coinan kasoo baxaani jirin waxaad tegaysaa dhat screenka oo lamida waa arkaysaan dhammaan kuwan waxay ku dhisan yihiin BNB calaamadoodii baa saaran oo arkaysaan marka dhammaan qodobadan ayaan si fiican kugu wada sharxi doonaa dashboardka inagoo xagga sare ka bilaabi doona haddana ku xigsiin doona xaggan hoose kadibna aan ku xigsiin doona balsinga iyo trashka iyo kuwana aan ku xigsiin doono waxa kaloo casharada kalena aan kusii baran doonaa filteriska wixii kale ee casharkan raaci doonana waan raacin doonaa marka imika waxaan ku bilaabi doonaa qaybtan aan joogno waa discover ayaa la dhahdaa saa arkayso qaybtan waxaa la dhahdaa balsina waxa ay leedahay u kala qaybsantaa 3 qaybood marka Solana iska tagno si fiican si aan ugu wada aragno coinska ka soo baxaya inkastoo khadkeenu yar culus yahay laakiin haddana waa arkaysaan 1 minute ayaan ka dhigay discoverka ayaan joogaa trending ayaan kasii doortay waxaa kaloo kasii dooran kartaa search waxaad kaloo kasii dooran kartaa dex screen iyo coinska banfang ka soo baxaya ee live tracker iyo tokens ayaa iyaguna jira marka intaasoo dhanba waxay hoos imanaysaa discoverka ayay hoos imanaysaa marka inta badan waxaad isha ku hayn doontaa Solana marka aad joogto coinanka trending ka soo baxa marka coinkan oo kale hadda wuxuu jiraa 12 minute oo kaliya ayuu jiraa haddii aan ku dul fano oo aan eegno marka coinkan oo kale ayaa soo baxay haddii aan ku dul fano inkastoo khadkeenu culus yahay laakiin mar kale ayaan si fiican faahfaahin doonaa marka coinkii ayaa hadda soo baxay oo saasoo kale u soo baxaya coinku inta badan dhaqaaqa ugu fiican wuxuu sameeyaa dhowrka sikin ee u horeeya hadda 5 sikin ayaan joogaa time frameka marka aad soo samaysanayso sidaan ayaad usoo saxanaysaa dhammaan time frameyada marka aad doonayso inaad kusoo gurato ani 5 sikin ayaan isticmaalaa coinkan iyo sida loo baaro xagga dambe ayaan ku baran doonaa qaybtan balsi ay ku qoran tahay iyaduna 3 qaybood ayay u kala baxdaa waxa ii furan xaggan ayaa iska xiraysaa haddii waxay furan aniga coinanku xagga ka soo baxayaan inkastoo xaggan aan ka furay waxa ii furan soonkan oo xaggan iiga furan marka xaggan haddaan iska xidho coinan badan ayaa kasoo baxaya markaa saasoo kale ayaan u furtay marka laba ayay u kala baxdaa qaybtan kooda waxaa la dhahaa new bears oo waa coinanka cusub ee hadda soo baxay qaybtan waxaa la dhahaa final stretch ayaa la dhahdaa oo waa coinanka meel dhexe maraya ee aan weli guuleysan qaybtana migrated ayaa la dhahdaa waa coinanka guuleystay ee ka sareeya market capkooda 50,000 iyo wixii ka sareeya ayaa halkan soo gala qaybtana waxaa soo gala wixii 50,000 ka hooseeya qaybtana waxaa soo gala new bearska cusub ayaa halkana soo gala imika coinkan hadda ayaa la sameeyey waa coin cusub qaybtan iyo qaybtan waxay kala duwan yihiin qaybtan coinkii oo cusub oo trending ah ayaa soo galaya coin cusub oo trending ah macnaha coin cusub oo hadda la sameeyey trending ah oo dadkuna iibsanayaan ama ay trade garaynayaan hadda coinka waa arkaysaan waa trending coinkan waa trending wuxuu ahaa 40 second ayuu muudaatay markiiba oo wuxuu marayaa khasaare boqolkiiba wuxuu ku jiraa 13% ayuu ku jiraa waa arkaysaa marka balsin waxay iyaduna kaga duwan tahay in halkan ka qaraabato iyo in halkan ka qaraabato oo maadaama trendingka ayaa ugu wanaagsan coinkii oo la gadanayo oo hadda soo baxay ayaad markaa trade garaynaysaa marka qaybtan filter baad ku xidhan kartaa filterskana xagga dambe ayaan ka sheegi doonaa qaybtan lafteeda iyadana qayb walba filter ayaad ku xidhanaysaa halkan filter ayaad kaga xidhaysaa qaybtana halkan filter ayaad kaga xidhaysaa qaybtan kalena halkan filter ayaad kaga xidhaysaa marka aan ku soconno qaybtan waxaa la dhahaa tracks ayaa iyadana la dhahdaa qaybtan berberial weeye xaraan iyadu oo lama isticmaalo waa qaybtii cryptada waxay leedahay long iyo short ayay iyadu leedahay way ka duwan tahay marka qaybtana waa waxa ugu muhiimsan oon
qaybtan portfolio-ga oo ah halka aad kala soconayso dhaqdhaqaaqaaga. Saddex qaybood ayay u kala baxdaa, laakiin anigu hadda akoonkan ma isticmaalin. Saddex ayay u kala baxi doontaa. Waxaad ku arki doontaa coin aad iibsatay oo aad ku khasaartay, history-yadii coinankii aad qaadatay, iyo coinankii aad guulaysatay. Halkan ayaad ku wada arki doontaa. Marka qaybtana intaas ayaan ka gudbaya. qaybta rewards ayaa la raahdaa oo marka coin aad ku khasaarto ama aad faa'iido ayaad halkan ka urursan doontaa dhibco yar. Halkan ayaad claim oran doontaa. Marka qaybtaasna saas ayaan kaga bixi doonaa. Waxaan u gudbi doonaa qaybta halkan ku xigta. Halkan waa depositkii oo marka aad coinkan Solana waa inaad lacag Solana ah ku soo shubato. Marka hore Binance ama Bybit ayaa samaysanaysaa, lacag ayaad ku shubanaysaa, lacagtaas ayaad ku iibsanaysaa Solana. Lacagta Solana aad waxba ka bedelin ayaad address-kan ku soo diraysaa. Address-kan ayaad ku soo diraysaa. Address-kan marka aad ku soo dirayso halkan ayaad ka koobiyeynaysaa, kadibna saas oo kale ayaad ugu soo diraysaa. qaybtanna waxa aad ku kala bedelanaysaa labada lacagood. Haddii lacag Solana aad haysato, halkan ayaad san odhanaysaa u kala rogaysaa, kadibna confirm ayaad leedahay. Marka lacagtii Solana ahayd ayaad leedahay BNB igu bedel, maadaama labadiiba halkii aad marna Solana ku soo shubi lahayd marna BNB ku soo shubi lahayd. Lacagtii Solana kugu jirto baad halkan automatic u kala bedelanaysaa. Deposit waa lacagtii. Marka haddii aad doonayso in halkan Solana kaga iibsatana, shirkado kale ayaad kaga iibsan kartaa, laakiin waxa fiican inaad lacagtaada Bybit intaad marka hore ku soo shubato, kadibna aad halkan ku soo dirsato. Xaggan waxaad kala soconaysaa negativation-nada coinanka adiga waan ku tusi doonaa halka laga xidho. Waxa jira oo kale intana waa wallet-kaaga bay ula socotaa. Halkan waxaad kala soconaysaa waa isla depositkii qaybtan ku tusay. Lacagta wallet-kaaga kugu jirta halkan ayay soo geli doontaa. Kala bedelashadiina halkan waa sidii uun. Marka qaybtaas aan ka soo gudbo, waxaan u gudbi doonaa qaybtan hoose. Halkan intan waa shirkadda ayaa iskale, waa xayeysiiskeedii, waa shirkadda Discord-keedii, X-keedii, intaa shirkadda ayaa iskale. Halkan waa wallet-ska, wallet tracks-ka ayaa lagaga xidhaa. Xaggan waa khadka ayaad markasta kala soconaysaa inta uu marayo khadkaagu. Iminka khadkaygu waa xun yahay, aniga disconnected waa arkaysaan. Halkan waxaad kala soconaysaa Solana inta ay marayso maanta. Waxay xabadii Solana maraysaa $113. Marka halkanna waxaad kala soconaysaa Ethereum inta iyaduna marayso. Waxay maraysaa 3,930. Marka Bitcoin-na hadda waxay maraysaa iyaduna 89.6k ayay maraysaa. Xaggan kale BNL waxa loo soo gaabiyey profit-kaaga ayaad kala soconaysaa. Halkan ayaad faa'iido markaad coin-kii oo kale hadda trade garanayso, halkan aad furi doontaa. Halkanna faa'iidada ayaa ku soo geli doontaa. Setting-kan haddii aan sii tagto, halkan lacagta haddii ku tahay Solana, haddii lacagta halkan kugu soo qormayso, halkan aad iska xidhaysaa, kadibna lacagtaas USDT ayay ku noqonaysaa oo halkan lacagtii Solana ayaad soo gelaysaa oo dollar ah. Marka qaybtan gadaal ayaad ka baran doontaa. Halkanna waa balsigii uun oo kan weeyaan xaggan la keenay. Discover-kan waa Discover-kan oo xaggan la keenay. Twitter waa Twitter-kii oo adiga Twitter track iskaga xidhan kara. Xagganna wallet-iska ayaad ka xidhan doontaa. Casharka labaad ayaad ku baran doontaa sida wallet trader, memo trader wallet ah lala isticmaalo. Halkanna referral-ka waa qaybta labaad ee muhiimka geli doono. Waa qaabka fee-da la iskaga saxo. Marka fee-da ayaad iska saxi doontaa. Marka haddaan kusoo noqono halkan Discover-ka, marka weli waxaa noo furan halkan aan iska xidhno. Coin-kan oo kale ayaan ku dhufanaa coin-kan. Marka waxaynu ku horeysiin doonaa deposit-ka ayaan ku xirsiin lahaa, laakiin waxaan ka horeysiin doonaa sida fee-da loo saxo. Marka hadda fee-da ayaan ka saxi doonaa. Marka doonayso haddaba inaad fee-da network-ga aad hadhow markaad shay trade garanayso ama coin aad iibsato, fee badan baa kaa go'i doonta oo haddii aanad garanayn oo aad cusub tahay. Marka halkan coin-kan ayaad ku dhufanaysaa. Waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay present 1 iyo present 2 iyo present 3 ayaad ku dhufanaysaa. Marka mid kasta wuxuu leeyahay buy iyo sell. waxaad markaa ka dhigan doontaa anigoo soo buuxiyey xaggan 20 ayaad ka dhigaysaa kana waxaad ka dhigaysaa intii uu ka yeelo waad ka dhigi kartaa zero kale aad ku sii dari kartaa marka xagganna waxaad ka dhigi kartaa inta in leg ayaad ka dhigi kartaa oo 3 zero marka xaggaas marka aad dhamaystirto waxaad tegaysaa selkana inta in leg ayaad ka dhigaysaa inkastoo xaggan 40 ka dhigayso inta zero ee adiga ka yeelo waad gelin kartaa 5 zero meelahaas aad gelinaysaa
5 marka 5 aad geliso halkana 5 ayaad gelinaysaa 5 ayaad ka dambaysiinaysaa hal qaybtan labaad ayaad tegaysaa iyadana sidaas oo kale ayaad ka dhigaysaa 5 ayaad ka dhigaysaa xagana 5 ayaad ka dhigaysaa oo fiiga network marka aad bay shayga tiraahdo fee yar ayaa laga goosanayaa oo feedii ayaad iska yaraynaysaa laakiin marka aad cusub tahay waa inaad halkan iska soo saxdo qaybtaas marka aad dhamaystirto qaybta kale ayaad ku xigsiinaysaa qayb walbana waxay leedahay buy iyo sell iminka tan oo kale waan ka booday oo arkaysaan xaggan 5 baan ka dhigayaa xaggan kalena 5 afar kale aan ku darayaa marka 5 saasaan 5 uga dhigay waa arkaysaan xaggan 5 baan ka dhigay kan 20 baad ka dhigaysaa bayga ka kalena 4 baad ka dhigaysaa xaggan waa arkaysaa xaggan waxaan ka dhigayaa 5 ayaan ku waxaan ku darayaa laba kale xaggan kale waxaan ku darayaa 4 oo kale ayaan ku darayaa arkaysaan marka tan saas oo kale ayaad uga dhigaysaa iyadana buy iyo sell ay kala leeyihiin marka buy trana intaas ayaa ka go'aysa marka sell trana shaygiiska iibsana inta in leg ayaa ka go'aysa marka xagana saas oo kale ayaad dhamaan ka wada dhigaysaa oo 5 ayaad ka dhigaysaa 6 waad ka dhigi kartaa marka inay isku wada mid haadaan ayaa fiican marka halkan waa 5 marka dhamaan saas ayaan ka wada dhigo arkaysaan kan kale aan ku noqdo wada hubinaysaa inaad ka wada dhigtay kan kalena kamaan dhigin kan waxaan ka laba ka maqan kana laba waxa ka maqan laba kale waa arkaysaan dhamaan saas ayaan hadda ku wada saxay kana waa arkaysaan waan ka dhigay kana waan ka dhigay kana waan ka dhigay kan kalena waan ka dhigay kana waan ka dhigay dhamaan hadda waa arkaysaan coinkan gadan lahayn uu dhaqaaq fiican buu sameynayaa 2 minute ayuu jiraa 2 minute isagoo jira ba haddana dhaqaaq fiican sameeyay waxa kale oo aan hadda ku dari doonaa oo isna ku dari doonaa deposit inaan lacag ku soo shubo lacagtaas ayaan ku shubi doonaa waxa qaadatay qodobadan Axiom sida loo sameysto blockchain-kii ayaad fahantay waxaad fahantay Axiom dashboard-keedii oo dhammaan haddana waxaan ka yar boodnay deposit-ka iyo withdrawga waayo withdrawgana 10ka dambe ayaan raacin doonaa deposit-kana hadda ayaan ku shuban doonaa lacag free trading kana sala soco waan dhammaystiray waxa kaloo intaa u gudbi doontaa 10ka labaad marka aan hadda ku shubto lacagtana san ayaan ugu shuban doonaa haddaba si aad Axiom lacag ugu shubato ama deposit tiraado waxaa ka baahan yahay inaad samaysto marka ugu horeysa 3 qodob marka lacag aad doonayso ama deposit aad doonayso inaad soo samaysto waa inaad leedahay account ama application-ka either app aad soo samaysatay ama taran app kuwaas oo ah sariflayaasha cryptocurrency ee Soomaalida ay midka ugu badan ay ka sarifato lacagta cryptana ay ka hesho waa inaad haddii kale aad samaysato Bybit ama Binance labada mid aad adigu iska leedahay lacagtana kadib aad ku soo shubato intaa kadibna aad iibsato blockchain-ka Solana sidan oo kale marka waxaan doonaynaa hadda waxaan ku soo shuban doonaa Solana waxaan tegaynaa xaggan deposit ana markaa Solana ayaan ku soo shubanaa waxaan qaadanaa Andreskan markaan qaato waxaan tegayaa mobilkayga sidan oo kale saarksan waxaan soo galay account-kaygii oo ay lacag igu jirto marka hadda waxaan doonayaa inaan iibsado blockchain-ka Solana waxaan tegayaa trade markaan tago xaggan waxaan ku qori doonaa Solana waxaan iibsan doonaa qayb kamid ah Solana ayaan iibsan doonaa kadibna adiguna saas oo kale ayaad iibsanaysaa marka Solana ku dhufto Solana ayaa ku soo baxaysa kadib halkan waxaad ka dhigaysaa market waayo waxaad iibsanaysaa Solana marka aniga waxaan iibsan doonaa hadda Solana $15 oo Solana ayaan iibsanayaa kadib lacagtaas ayaan geliyay kadibna buy ayaan leeyahay kadib Solana saas ayaan ku iibsaday hadda account-kayga waxa inay Solana soo gasho saarksan waa soo gashay Solana waxaan haystaa 14.5 Solana marka Andreskaygii ayaan soo qadan doonaa oo mar hore aan soo dirsaday kadib saan ugu shubto waxaan tegi doonaa Solanadan ayaan ku dhuldhufanayaa kadibna withdraw ayaan leeyahay si aan ugu soo shubto Axiom lacag kadib halkan ayaan akhrin doonaa kadib xaggan waxaan ku basti garayn doonaa Andreska SD kadibna halkan waxaan gelin doonaa lacagta Solanada aan sito kadib xaggan waxaan soo sarifi doonaa xaggan waxaan soo dhigin doonaa lacagta aan ku soo shubtay Solana oo tan confirm ayaan leeyahay kadib lacagta xaggan ay igu jirtaa kadib megas ayaan leeyahay oo arkaysaan wuxuu leeyahay waxa ku geli doontaa lacagtaas
fee-gana laga jarayna waa 0.08 waxaan saabin doonaa bal lacagta ii gelisay inta tahay lacagta Solana ahaan ii bixi doontaa waa intan oo ah 0.11 Solana oo u dhiganta $14.77 senti waxaa laga jari doonaa baninta fee-da laga jarayaan eego fee-dana waxaa laga jarayaa 0.008 oo u dhiganta $1.07 kadib markaa waxaan doonayaa inaan lacagtaas u dirsado waxaan leeyahay underiska ayaan iska hubinayaa underiska markasta iska hubi adiguna waxaa ugu horeeya FSM marka saas ayaan ku hubiyey kadib waxaan leeyahay withdraw kadib withdraw confirm ayaan leeyahay adiguna saas haddii aad haysato account Bybit ama Binance oo kale ayaad lacagta ugu shubanaysaa Axiom-taada kadib waxaa soo gelin doonaa anigu lambar xaggan ayuu soo geliyay lambar sira halkan waxaa soo gelin doonaa Google Authentication-kaygii ayaan soo gelin doonaa kadibna saas ay lacagta igu bixi doontaa saa kasta wax soo gelinay authentication-kii iyo password-kii marka halkan confirm ayaan leeyahay saarkiisaan lacagtaas saas ayaa noogu baxday halkan ayaad ku hubin kartaa lacagta meesha aad ku dirtay waxay ku jirtaa hadda process ayay ku jirtaa kadibna waxay soo geli doontaa Axiom-keena markaa qaybta laptopka ayaan hadda u wareegi doonaa xaggaasna ayaa ku dhammaatay deposit-kii adiguna intaas ayaad samaysan kartaa marka haddii aanad lahayn oo aad leedahay account Bybit ama Binance waxaad samaysanaysaa application-kan haddii aad leedahay Binance imika kale waxaad soo gelaysaa either app kadib waad kala rogaysaa xaggan waxaad leedahay account-ka Binance igu shub marka waxaa jira network la soo geliyo network-gana xaggan ayaad ka soo gelinaysaa xaggan ayaad tegaysaa kadibna xaggan ayaad ku dhufanaysaa add account kadibna account badan ayaad ku soo dari doontaa address-kaaga oo kale ayaad soo gelinaysaa kadib lacagtii markaa soo geliso xaggan ayaad kala rogaysaa kadib xaggan waxaad leedahay Binance haddii markaa lacag kusoo shubanayso ugu yaraan oo kale $30 oo kale aad kusoo shubanayso markaa saas oo kale ayaad ugu soo shubanaysaa shirkaddu waxay leedahay meel lagala hadlo oo fariimaha oo support oo la yiraahdo support-ka ayaad ku dhufanaysaa kadib horta intaan lacag aanad u dirin iyaga la hadal inay shaqaynayaan iska hubi kadib way kuu soo jawaabayaan xaggan aad kusii dhufanaysaa aniga hadda waan la hadlaa macmiil fadlan sawir iga soo qaad meesha ciladii ka haysato application-ka saas oo kale ayaan had iyo jeer ula hadlaa markaas saasaan had iyo jeer ula hadlaa oo ii soo jawaabaan si fiican oo ila shaqeeyaan marka haddii aad u baahan tahay either app Play Store-ka ayaad kala soo degaysaa iyo App Store-ka haddii aanad ka weydo App Store-ka oo kale aanay soo gelin iPhone oo kale aanay soo gelin marka Play Store-ka ayaad ka helaysaa lambarka ayaad gelinaysaa way fududahay muuqaalo horena waan ka diyaariyay YouTube-ka ayaad ka daawan kartaa marka imika waxaan wareegi doonaa qaybta laptopka marka bal waxaan eegi doonaa in lacagtiina soo gashay saarkiiso waxaan ku soo shubanay lacagtii Solana waxaan ku soo shubanay 0.10 oo u dhiganta lacag dollar haddii aad doonto halkan ka arki maysid oo arkaysaa Solana ayuun baad arkaysaa inkastoo xaggan sare ay soo dhigayso lacagtii aan ku soo shubanay oo $13 waxaa kaloo aad halkan waad ka heli kartaa oo arkaysaa haddii aanay ku haysadan oo aanay Solana ka tahay halkan ku dhufo kadib halkan ayaad xiraysaa marka Solana u baahan tahay marka aad u baahan tahay lacag dollarana xaggaas ayaad furaysaa markastana xaggan ayaad faa'iidada aad suuqa marka trade oo kale aad qaadato trade-kii faa'iido ku socoto si aad ula socoto lacagta dollarka aad samaysay xaggan ayaad sidaa oo kale aad ka dhiganaysaa kadibna haddaad doonto waad iska xidhi kartaa marka muuqaalkan haddii aad halkan soo gaadhay waxaan kuugu dari doonaa shuruudaha lagaaga baahan yahay inaad kooraska hesho qaybtiisa dambe 6 shuruudood ayaa kaa xigay inaad kooraskan dhammaystirato qaybtii koowaad step 1-kii iyo hordhici ayaan hadda halkaa kusoo gabagabay step 2 ayaan geli doonaa laakiin step 2 qofka doonaya inuu dhammaystirto ilaa 4-5 kooraska oo dhammaystiran waxaa laga rabaa 5 shuruudood oo haddii uu buuxiyo marka koowaad waa inuu linkigii Axiom yaala commentiga koowaad iska diiwaangeliyo waa in muuqaalkan haddii uu halkan soo gaaray uu saaro like muuqaalkana uu gaaro 1k oo like inuu ku soo biiro qodobka labaad Telegram-keena weyn oo isna yaala description-ka inuu ku soo biiro groupka isna ay ku qoran tahay memo trading oo isna gaara step 4 intaa kadib inuu heli doono 10 signal oo free ah marka uu lacagta ku soo shubto
linkigana uu isticmaalo. Step 5 qofkii doonaya inuu course-kan oo dhan helo iyo mentorship oo ka gaara course-ka oo lagu bixin doono Signalis iyo VPN Signalis gaara oo anigu ugu talagalay oo qofku soo dalban karo kan uu ka duwan yahay, laakiin kan course-ku waa free oo dhammaan 6 shuruudood ayaan sheegay ayaa ka xiga haddii aad dhamaystirto. Marka haddii aad muuqaalkan halkan soo gaadhay intaan muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.